صفة شنات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله وحويري صفات كمؤمنين تو أي وحويان كجو ليسن أيان وحكم مدأ إن يهين كو حبنه ذا ترنك إلى شده حبنته ذا ترنك وكأدقيهين حمان وأديك سن مايان ويك إلى أيان حبنت ترنك إن يقادم مال أنا هين لبضا ميلود اللو فصحي وحاسسكو دي حلاش أها إمهرك حلاشي وهيي iyo adoomadii midigtoodu ay mulkiday oo adoonnimo ay ula dhaqmayaan labada mooyee wax kale xubintooda waa ka ilaalinayaan. ilaahay waxa uu yiri fa innahum ghayru maluumiina laguma canaananayo inay xaajadooda ku gutaan labada xaasaskay qabaan iyo adoomada ay leeyihiin. faman ibtaga waraa dhalika fa ulaika humul aaduuna. allah waxa uu yiri labada la soo sheegay waxaan ahayn cidii doonta inay danteeda ku gudato alla ilaahay waa xad gudbeen. halka culimadu waxay ka daliishadaan maadaama la xarimay xubinta taranka in loo adeegsado waxaan ahayn labada oo inta kale xaraan laga dhigay sifo kasto kale oo labada ka soo hadhay oo ruuxu xaajada ama shahwadiisa uu ku guto xaraan bay noqonaysaa labada mooyaane. waxa kamid ah marka al-istimnaa in bihi gacanta la isaga keeno ama siyaabo kale la isaga soo bixiyo xaraan weeyi. waxana culimadu yiraahdaan waxa xaraannimada u dheer iyo inay tahay yaani dhacdadaasi ficil qofku uu ciqaab iyo cadaab ku mudanayo waxa u dheer caafimaad darrada iyo mustaqbalkiisa dhibkay u keenaysa caafimaad. waayo had iyo jeer shariicadu waxayna amartay wax inoo dana camalkeena iyo cibaadadeena iyo caafimaadkeenaba. waxa laynoo diiday laynaga nahiyena waa wax inaka dhib inagu ah yaani if iyo aakhiraba day caafimaad tahay iyo day cayn kala tahayba. marka istimnaaga oo biyaha in la iska keenaa ayaa kamid ah muharramaadka tahriimkooda aayada laga qaadanayo. dadka dhakhtarada iyo caafimaadkuna ay cadeeyeen qofka waxay dhaxalsiin karto jir ahaan iyo maskax ahaan iyo caafimaad ahaan iyo awoodii shahwadeeda alla uu siiyay intaba dhaawaca iyo dhibka ay ku keensanayso qofku marka dambe ayuu ka nadaamoonaya. waxana waajib ku ah qofka marka hawadaasi ay gasho ee uu baahidaasi ku adkaato dariiqi xalaasha aynu ku raadsado oo xaaraanta naftiisa uu ka xakameeyo oo uu ka fakaro guur xalaala oo naftiisa ay ku dhowrsoonaato oo xumaha uu kaga xakameeyo yaani uu ku dadaalo dariiqeedana uu maro. haddii ay ku adkaato وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ويسك صبره وصونك بديو إلا إلهي وكسينيو وحكو غورسان كرو ووحا ويان دي مسؤولية يحل وكو قادي كرو وحان الله يراهدا وحان لغو خسارين غور باجرة يعني قفك دلنيرتي سكستو دايري هديو هلكو حيران كغدي إلا حق حلاش أو دقاقو مرنبا كو خساري مايو سيوكو غلبا مركا هدي يشيرنا مركستو حلاش الله أتكيو oo ay yaraato oo lagu dhiiran waayo tii xaraan un baa bedelas. maanta waaqiceen iyo bulshadeena maxaa ku badan awlaadu zinada banaanka lagu soo tuuro caruurta iyo hablaha fasahaada iyo rag iyo dumarba way nagu fara badan yihiin. marka haddii xalaasha la adkeeyo oo la sahli waayo waxa bedelaya xaaraantu inay fara badato dhaqan xumaduna meel walba ay ka dhacdo. marka qofka shaabkee daayarta ah habla iyo inamaba حلال كفكر جورك كفكر سيدادو جورسن لهيد نفط هذا حلال أدو قدر يلي لهيد كد دال لكن حاران تشيطان كو قرحنا يو كشيتسو وهي هلاك يهوج يدباتهم بدو قد عادي إف كنوات كعيبو بيسا آخر نوات كعقابنا نيسا لا بدن بدنا كودن معها وايو انت بدن دم بيجا يردقن حماد قفك دو عادة كدكتو مالين يلا بقى يسد حداد أسطوران تم مالين تدم بوات كشف مون ويصابحون